محمد الكشري Soomaali mugtahay wax adduun ugu xun aan sameynaa qofka heeso awle qofka heesa dambi waay heesaa ka toobadkeen waayahay adiga maxaa isoo raadisay صح ya صح culimadu waaweyn maxaa u xirnaa weyse maxaa ana facebook iga soo dulmaray صح oo ay soo raadisay haa isoo raadisay صح ilaa shaydaan ahaye shaydaan ay u tulayo soma toobadkeen dhisa ilahay maa qalad gar wariyaa saddex jiraan la fuulaya abatana صح بين تمام ها إن أنت سكوا على اسكندرية هو ما قلت وعاص لك ما ضايف فنك لا حراني أنا ما كان دماء ما كان حمص أنا فما كبح مني هدي قف إسلام أوجره أنت لا عكس تتصل كل شيء قصيده عارف ما قص أنا يسألك وسيا يا ميا سليمان إذا فك التوكل أنا إذا وحنبر يبي وحبي برتان ما بدنا معناها waxaa tahay hadii wax ka fiican oo adiga aad noloshaada ku dabarto oo gurigaaga iyo carruurta aad ku bixiso ay ina iska dhaafayso hadii markaas idmi idle lacag aan siinay waxa waaye horogsi wada marka waa kiyo alxamdulillah Soomaali meel jirto wallahi baa noo kaceen waxaan inta aan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay aad aan wanaagsantahay samantaradayna qaaliga naimo marka idan waxaa leeyahay gurigeed ii keentay oo ibaanisay oo shaqaalihii tiri 3 waqti miidka u saarnaado bug aan uga masha Allah aad u maastahay manaxila wala sheedan aad u maasantahay yani markii Soomaali dhan kasoo tago dadkii yani oo ku dhawaay ay waxa leeyahay alxamdulillah oo qof walba Soomaali oo kulli waa wallahi nabi ku sheegan laamigaas markaa lugeynaya xamar masaajidadu way istaagaan wallahi dugsidagana way garanayaan alxamdulillah waxaa waaye waan taqaanin qofka marka uu ilmo oo hooyo aabe iyo uu isku yahay xaalkiis waa taqaanaa turkiyan taga baadaro sokotii 470 ee ninkii dhaqtarka wuxuu yidhi kiini misacan wiiga maya weliga ma cunaan leh maxaa isticmaalaysa wax leh raashin nooceed wax walba isku cunayaan u yaabi markaasuu ninkaan muwaaliya هاي هالمرة كومكش ما هذا نكان مقالة كردين وين سكوت بقول إيجاتي أما كسرت سديد ملاص إيجاتي إيجاتي مساجنا أم بقول كس هنا إيجاتي داوين الشغل إربطها له بالأخ بدي ما كلو بلا سكوت ولا شيء داوين حلو تقعناي عين قريب ولا ما إيجالا والله بيمكش أقول بلا طلع إيجالا بيمكش شيء عندنا إجمع فرماية لكن ما حكي لفه كل شيء المهيجي سقطت ودجي هذا ما حكى الله بقول زيت تحبول الجرس فديان فديان وأسعبنا أنت سمعتها معك هنا أيوة مش حنكري هي تورت تورت أقدر صو المهيجي حرفك فكري سا ها بينهم وحكوا هذا قولي يصدمي أنا بركة أنا أو ده ذك أو نقص كتماني يعني المية وليد إيجتاين قف ما قاعد أتذكر بعيري هل ويك سو مراو ويجس كده بالماء عنقرب قصة لقى بحناي أنا جوجتان كده بقاهي إلى جوجتان عاوم بحيا بها بقول الله أبين كبتيد قصوني صح صح سيدي ما أنيو أن حمركم هذا حمر كي عند الحقوق دول ما نسيجوا هذه كده محمد المية وصور ده الحمد لله المية هو يفعل هذا ويعيله oo kaalis karaga ciidan waxa uu maadcelnaa gabadha ay shaqeyso aniga kulli maanta familana 10 sano ay shaqeynaysaa waxa qof kaliya aan iga fikir waayo marka ciidan waxa leeyahay aad u maasan tahay gabadha magaad justa Allah cidna maahan qofka inuu Soomaali yahay kugu dhaqan yahay kugu diin yahay maahan muhiimadda waxay tahay in qofku uu yahay qof adiga معناها أما قفنا حديث بلاد لمن أسمى سنوية وحول بفهمك إلا سيدا شيء سيد قبل مسلم معهم واقعنا أنا عن واقعنا مدة 10 سنة كله يكون شقينيس معناها ضد كنا داونا يعني وحرب أنا أشرحه قف أجنبي وأن كودين يكون قناهين
10 sano gurigaaga ka shaqeynayo oo maalin aad waxba ka tabanin oo gurigaaga markaa ka bixaysidna aad uga teganaysa carruurtaada qof walba wuxuu dareemayaa wanaagga qofkaas uu leeyahay wax kaloo jirta ku sheega kuwan kale kiyaankan kale oo shaqalaasha waxay sameeyaan anta gaani ku joogto waxay sameeysaa haddii oo tubo ay meel ka dilaacdo ama koronto ay keento shock nina wacamo waxay leedahay qol galbax ninkaan Soomaaliyan wuxuu kugu sameeyaa oo dhow leeyahay wax yar oo 100 shilin in lacag badan ku sheegay anaa deganaa guriga 3 saas qof noocaas dad waxay dhan ka dad saddex dhaqaalaha qof ilaalinayo ana inta soo gumay kaado safar buu aan baxay ma soo canda hay maxaa u baahan tahay ya jidku keenay burburfunkeeda waxay ama tamam waxa waaye qadar qayb ka leedahay kursiisa marka waxa waaye qof iloobi karo waxay isaanta wasaq qof wuxuu leeyahay waxa waaye naag badow adoon ku saaran adoon ilaahay adoon loo leeyahay horta hal mid dadkana waa ka baraarujinayna ma mid wax Soomaalideena waxaan naqaan dhaqan ah anaga waxaan nahay Soomaali muslim aan nahay meesha aan deganahay ama dhaqankeena ama midabkeena waxa waaye black Afrikaan aan nahay qofka wuxuu ku leeyahay maxaa waaye qofkan adoonkan madowgan maxaa waaye balaagan maxaa waaye Afrikaankan maxaa waaye anaga ba Afrikaan ah qofkina wuxuu ku leeyahay muxuu yahay Afrikaankan horta dhaqan aad u xun waaye Soomaalida inta badan way isticmaashaa waliba xitaa dadkan ku nool Kenya ee Soomaalida ah zaid u isticmaalaan adoonka maxaa la Afrikaankan iyo waxaas waa dhaqan aad u xun waaye adiga macnaha hadda markii runta laga hadlaayna markii runta laga hadlaayo Afrika dadka ugu liito oo maantay macnaha ugu liita anaga ah waayo dawladeena waa meesha marayso waa ogtahay amaanka wadankeena meesha uu jira malahan hadda tusaale ahaan wadanka hadda aan joogno dada caafimaad free helo dada waxay helaan waxbarasho free ah maxaa la caafimaad free helaan ma fahamtay anaga ma jiro qof Soomaali ah oo maanta dhihi karo waxaa haystaa caafimaad free ah xitaa caafimaadka hadda iska bixisid oo waxbarashada iska bixisid amaankaaga xitaa maahan mid oo safe ah fahmino dadka anaga ugu liidano marka Soomaalideena waxaan leeyahay iska dhaafno dhaqankaas waa dhaqan aad u xun waa adoonkan hadda ogeysiisan ku hayaa ogeysiis dhamaan waxa ogeysiinayaa familiada isqabaan xaajida marka aad gogasha tagtiin korontada damiya laga yaaba inaad kaamiraska dubaysiin adna waa dhakan tahay asagoo ku dhagan yahay mugdi lagu kala baxo macnaha wax kaa doosaa hadda waa halaa siran ka hayaa iyo awooda maxaa ku dhacay maxay ku dhacay wad mugdi isku mursan ya adhoone marka marshidino marshidino baatay wada igu xiran ba maalis kadib markaa seexanis waa inaa buumo ku saxataa waa iga talo wallahi lamaana isqabo aamin waa dhintay صح in is aaminin nin oo baasha oo reexan mar oo dadkaan reexan marine aamid oo suucilaatiin ya wuxuu timid waxaan baana gasacan iyo ilmihii biirkii soo dirin aamin waa kuu keenay wuxuu yiri wada aamin shimas dhintay waxaan sabar mka dambeyn ليش آمن وأحسن؟ إنا نسامين. الآن ما أجيب عن. أجيب عن. إيه لو طلعنا بدا كل شيء. يعني هذا على هذا كسكفتنا ولا هذه. ما قال ذن ما غجر. هذا أنا مثل ما منه قف مثل ما منه. ما غجر أعمق شيء عمل وجو كان والله بيس خبطه أو كلا تكتي ولا ليه يعني صاحبه قفتان فيديو يجي ساول قبل ده يلاقي كان فيديو يجي فيديو بحتى. واحدة كذا لا ما هو. لا كمان مقالة عم تاي قطص كشيء هذا مش قطص أنا ضد قراءة أنا مقلنا لكن بس أنا الحمد لله أنا قهواي ضن شقاين المية والجو انقرض ضن شقاين شقاء هذا انقرض التخصص كنا فينا في ليست أجيب بطاطا واجد جدا ماشي بمشي كوسة أحس كده ساعة كافي أو بلا سكر وقرانة أسكعبة تقبل لو سوق هذا وريهم كذا أنا كيس مرو
mariis geed maqtuulino صح waxa waaye xaalado xun jira maxaa leedahay marka dadka nin hadduu yahay ama naag uu yahay qof hal maalin aan nolol qaybsateen oo sariir wadaagteen ama xaaskaaga ahayd ama ninkeedii uu ahaa in qof inta video uu ka duubo uu hadhow rakaato uga dhigo laka waraayada laa taas dhibaato wallaahi sababto ah waxaa arka gabar oynaysa waa loo ku koriyaa midda waxaan leeyahay taqaanaa war adigi faadima laga qabto baasha ee video lagu duubay fardooso socda maxaa u tagtay may maalin walba loogu digaa oo farxi kabelo waxaa ku jirtay oo dhahday iska ilaaliya waxaan haddii xitaa oo la huri waayo ya caalka lebisaa laga dhigo haddii la huri waayo wejiga qariya qabiilka Soomaali kamid ah waxay dhaheen anaga gabdhaheena ma aha dadka oo istuur camal nadiif waay marka loof ma loof malaga yaqaano marka yaqaan ma wajh dil qariyo loof iyo loof malaga loof ka صح wajh loo dawlay almin saas واتاي انت ذكرت إذا waxaa jirto waxaa soo gaarnay qaybay dhaxay barnaamijka waxaa jirto arrin dadka ka qarsan balse dadka adiga ku dhow inta badan ay ogyihiin oo ah in iday la sixray halka wara taas ay halkayo dadka waxay idow ma loo soo isbaaki YouTube kaaga fawaidi ma loo bilaw fatamada alxamdulillah waxaan soo galnay xataa inaan barnaamijyada baawarno hadda kadibna ay toos noqonayaan insha Allah ay wadiga toos noqonayaan barnaamijka adaa soo hidisay kale kiyo qabi jiro hay ku jirnay kaas kaftani qaraaxa kafti qaraaxa marka taas waxa weyn nin horta sharka arinta weey waxa waay magaalada ku jira horta waa loo badan jamaa jecel ma ku sheegtay wal dumiba xamar ordi jamaa jecel aan nairobi ku waad xamal mujib jamaa jecel oo sigi isku xiro ku asaas xiro madaxa galaal tumo gule magaala magta marka kaliya leeyma sixirne waa la badan jamaa jecel ya waa ku day صح meel ku sheeg ilaahay kuma daraade ad waa la badan yahay anaga muxuu ahaa magac kalaas waxaa dhahday meel ku sheeg meel ku sheeg walahay liicaato meel ku sheeg liicaato turkigiinu jooga malaad waa la jooganta waa lagu jiraa wax arjir bas doona ame badki waay ame koyti wala ame koyti waxa waaye jadda fagax ka dhacda magarta anina waxaa linacsi shaqadii linacsi waxa waaye waxba xamar marka amaada qur-aanka saaray faxa noqday alxamdulilah nin awal waxaan aadi jiray bombaaso xijaab waxaa laa jiro xirsi oo qoorta la gashanayo badda oo kale biyaha badda iyo waxaas waxyaaba badan oo fiican xirsiga marka oo sakiinta ha marka da sakiina ku xir xaragay umalay صح hadda idin sheega xaragay mud kadinki meel ka baxan waay sababtoo xarig muddo ku xiro aniga katiin oo silfir waxaa doon lahaa waa qaldamut laakiin xarig oo madow aa laygu xiray maakinoo guryaha xamar xamar gaara jooga dadkii laa ma joogaan ya hilbaadi oo biyo ku jiraan albaabka lagu xiro hilbaadi walba ha waxa waaye gaari isku wataa jira waxaa lagu galaa baashi meesha car nin leefka oo iskar magaama joogo aan qoomaal maxamed deeq barido badmaceeye intaas aniga isoo gaari karaan intaas ha soo gudbaa horta manaha soo gaaraan car wallahi oo bilah tala hal maal halis balansado leef ha isku balansadaa ila marka hadda hadii la balamiyo adi ahaan diyaarata waxaa ballan qaadayna diyaarta leefaysa may waa ogahay adi ahaan maadaama hadda nala daawanayo haddii life fanaaniin la dhaho adi diyaarata ha diyaar sax muuska la qabsadaa dhow codka waxaa saara kaa marbaanka saarana afa tamaam unku arkayo waxawaaye xanuunkeyga dad badan ku bartay
ما شاء الله صح وصل انت حنوك انت هذاك عادين ايد لو حاجه ارين معنا ورا براها bulshada si aad u qabsatay oo dad badan oo akhyaar ay ka hadleen oo ah markii aad xamar ka soo baxdo Nairobi ay imaanayso aniga iyo Cabduqaadir Koronto Raaga Cabdi iyo gabdho tiro badan oo heerka ciisay fartuun kaleeto ila boorku u imaan fartuun qaarlaas anigana dhowr mar su'aal weydiiyay oo ilaa hadda kuma weydiin serious marka runta kala hadlo oo aaway fanaaniintii maadaama iid la fanaan u yahay aaway fanaaniintii Nairobi joogtay inaan inta jeceliin ba ya bartaas maxaa ugu jawaabaysaa marka inaan inta jeceliin صح soo dhaweyn iska dhaaf soo dhaweyn inaan inta jeceliin maxaa keenay marka cadowtooyada intaas leeg maadaama aan su'aashaas ay ugu soo noqoto dhowr mar la weydiiyo wallahi abshkuuru maadaama iid la saaxiibka u yahay أنا بوركنا أجوكتين فنانين بدن ولي بعد وحلقوا ترياء مالها ودمدا قربها ما كلا قاعد لها مالها وبدن فنانين الصومالي ذي جوجا أي كم تاني دود مركي لبي هل مالها كلا لقى سعر ما فهمت مركا إيدلي ما دام أديك فنانين تأكل جست مركا لقى ربع أنا كصاحبتين مدين أو تحس واجد إنه وقع وحنون كاجي إنا كورقة من إنا وفرحات ونوعها إنا صور ريسته وصور بكسته ودب أنو وصور نقطة أنت هسي إنك بدن أنا جنب marka su'aashaas dhowr mar ali weydiiyay oo markii aan social media lagu arko la abshkuro aw fanaaniintii Nairobi والله مشكور ماذا كل شيء بالكيو حواي قفنا الحكم له لكن سبحان الله عندها يعني وحنقول انا انت كجعلان قول هذا كل شيء فانت نيروبي جوان انا عليك انت جعلين انا مقرب هذا صح يا صح وحاول فيسبوك او